Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaaw channelka oo mahad. Si joogto ah ayaan khalad u galaa oo wuxuu ka mid yahay nolol maalmeedkeena. Laakiin khaladaadka aan galayna ayaa ah laba. Mid koobaad oo ah mid cashir ku noqonaya ama wax ka baranaysid, iyo midka labaad oo ah mid khasaare ku geysanaya ama si kugu noqonaya qoomeen. Saan filaya dhammaantiin waa taqaaniin waa maxay Bitcoin oo lama baahna inaan idinka sheekeeyo. Bitcoin ama cryptocurrency waxaa la abuuray 2009 lacagta markay soo baxday ayaa nin la dhahaa John wuxuu isku dayay inuu aruuriyo lacagtan asagoona wax fikrad ah ama wax qiimo ka lahayn. Wuxuu aruuriyay lacag gaaraysa 7500 oo Bitcoin ah asagoo oo isaga ciyaaraya. John lacagta wuxuu ku aruurinayay hard disk. Maalmaha ka mid ayuu guriga ka guuray. Hard diskiina wuxuu ka tagay armaajo meesha aaleed. Markii gurigii la soo nadiifinayay ayaa qashinka lagu gadaray hard diskigii. Waxay ka bacdina wuxuu ogaaday inay lacagtii kor u kacday oo gaartay qiimaheedu €1000. Halka kuma ekaanin oo lacagtii maalinta ka dambeysay waa sii kordhaysay. John wuxuu isku dayay inuu maalinle ka heli doono meesha qashinka. Waxay ka bacdina lacagtii waxay noqotay 19000 oo halkaana John wuxuu isdhahay waxaad ku khasaaray lacag gaaraysa 148 milyan oo euro. taariikhdu markay ahayd 2014 ayaa waxaa la dhameystiray dhismo laga dhisay magaalada London. Dhismahaas oo ka koobnaa 37 dabaq. Dhismahan ayaa lahaa ascensor iyo meel jardiin qurux badan, magaaladana si fiican loo arkaya. Waxaa la islahaa dhismahan wax ka maqan ma lahan oo wax walba si loogu talagalay ayay u socdaan. Laakiin maalmaha ka mid ayaa la dareemay in miyaaradaha dhinaca uga yaala dabaqa ee qorraxda reflection ka bixinayaan. Reflectionkana uu wixii dabaqa ka hooseeyo dhan gubaya sida baabuurta, koobaha, baaskiilada. Xataa waxaa la gaaray in lagu karin kara ukun dabaqa hoostiisa. Waxaana la sheegaya meelaha qaar inuu heerkulku gaaray 70 degree. Waxay ka bacdi waxay isku dayeen inay meeshii dhan daboolaan. Waxaana ku baxday lacag gaaraysa qiimaheeda 12 milyan oo euro. Kan aad u jeedin wuxuu ahaa markab qaada rakaab culus ee sida konteenarada. Maalmaha ka mid markabkan asagoo oo rabo inuu ka soo xirtaa dekad ku taal meel wax yar u jirta magaalada Rotterdam ee wadanka Holland ayuu muddo 15 daqiiqo gudaheeda markabkani ku rogmaday. halkaas oo ku nafbaxeen 11 qof oo shaqaalihii markabka iyo baabuur gaarayaan 1040. khasaaraha halka ka soo gaaray wuxuu ahaa lacag gaaraysa 73 milyan. shirkad Lotus la dhahaa ayaa waxay qandaraas ku qaadatay inay dhistaa guryahaas oo intooda badan ay dhammaystirtay, xataa ay gaareen inay qaataan furayaasha dadkii dhismahaas dalbadeen. Dhismahan oo dhowr dabaq ayaa markii intooda badan ayuu mid ayaga ka mid dhismaba dhehaynin dabaqan ayaa inta la yaab kale waxay dabaqan dumay saas oo tahay shirkadii waxay ku qasbanaatay inay dib u dhisto jajab ah ama halkaas waxay waqti amal lacagtii dabaqan lagu dhisay dhammaan lacagtaas oo gaaraysay ilaa iyo 30 milyan oo euro. haddaba asxaabta videogeena maanta halaan uu ku ekaa. haddii aad ilaa halkii la soo socotay aad iyo aad kugu mahadcelina. hana iloobin inaad videogan sii share garaysid. haddaad ka heshayna like iyo comment.